darawal waday gaari xamuul ah ayaa waxa lagu toogtay bartamaha magaalada Muqdisho aagga lambar 4 askariga toogtay darawalka ayaa goobta ka baxsaday raadkiisana lama hayo ilaa iyo hadda waxa la sheegay sababta dilka inay ahayd kadib markii labada qof waa askariga iyo darawalka gaariga wadee uu muran dhaxmaray kadibna askarigii uu si bareer ah u toogtay darawalkii gaariga waday $2 kaliya loo dilay buugaaga keena leeyahay buugay way canshuuriya buug mar rabay lacag keena leeyahay $2 kaliya loo dilay maalin walba sanad waa ninkii saddexaad asbuucan gudihiisa wadada waa sanadkii saddexaad asbuucan gudihiisa lagu dilo cid aan la wax loo qabanayso ma loo dilo waxa lagu dilay waa arag ka dhalatay dilkaasi ayaa keentay in darawaliin fara badan ay wadada xiraan waxaana dhacday saxmad weyn oo wadadii ayaa go'day dawladdu kama aysan hadlin ilaa iyo hadda dilka darawalkaasi askarigiina meel laguma hayo waxa aad looga cawdaa cadaalad xumo ka dhalata in dadka la dilo dadkii dilay ee gacanta lahaa aanan la soo qabanin cadaaladana aanan la keenin taasoo shacabka ku keentay hubanti la'aan ah amnigooda iyo sida ay u nool yihiinba waxaan u sheegaynaa dadkan mas'uuliyadooda qaaday oo ciidamadan xukuma oo saacad walba ay jidka noo taagan yihiin annagoo ah gaadiidley ha ahaato mooto ha ahaato caasi ha ahaato iskarogo ha ahaato kuwa xamuulka dekada ka shaqeeya ha ahaato mid safar ha ahaato booyad waa mid caam ah oo bulshada dhammaan ka siman tahay waa mid cid nala wadaagta xanuunkaas oo madax Soomaaliyeed aan la arag waa mid cid nooga garaabaysa aan la arag awal hore dhibaatada waxay ahayd shan saac habeenimo soconaanaha gaar ahaan gaadiidka dekada waxaana la yiri xaalada abni awgood ayay u xirata baashaasu waan ka shaqeynay oo raalli annagoo iska ah oo ka xun ayaan iska dhiganay gaadiidkii haddana sidaas ay tahay waa darawalkii saddexaad oo nala kaga dilo meesha fintu uno ilaa lambar 4 inta ka dhaxaysa darawalkii saddexaad dhibaato saacad walba nagu soo noqnoqotay way dadka mas'uuliyadeena qaaday oo yiri dalka iyo dadka annaga madaxka annaga mas'uulka naga saaran yahay waxaan u sheegaynaa ilaahay ka cabsada